islaamaha hawiye jooga gobolka banaadir oo joogo hiiraan oo joogo meelaha ay degan yihiin hawiye oo dhan dowladda ha garab istaagaan waxaan leeyahay haddii shalay la kala maqnaay maanta waa la wada joogaa waxba dadka ka qaadi maysaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. maanta waxaa guul iyo maaragtay wax lagu farxaa inaan joogno degmada Aadan Yabaal waxaana jooga dhammaan macwiishleydii ka timid gobolka hiiraan hore waxaa u jooga ciidamada qaranka waxaa kaloo nala joogo aan maaragtay caad qarinayn ciidamada galmudug oo safar dheer u soo galay in qawaaniijta meel la saaro waxa ilaahay maadiisa waxaan u aadayaan ugu nimid ciidamada qaranka iyo macwiishleydii deegaanka deganeed waxaana dhammaanteen naga wada go'an inaan meel iska saarno cadowga nagu soo duulay oo raba deegaankeena iyo dalkeena inuu baabi'iyo waxaan leeyahay haddii shalay la kala maqnaay maanta waa la wada joogaa waxba dadka ka qaadi maysaan waxaan ugu nimid annaga inaan walaalahin dhiiri gelino hadday yihiin ciidamada dowladda federaalka oo heer qaran hadday yihiin macwiishleyda hadday yihiin saraakiisha kala gedisan oo meel kasta ka yimid waxaan rabaa si gaar inaan u xuso haweenka reer galmudug reer hirshabeelle oo aniga igu faca oo awlaadoodii u kortay waa inay furmaha yimaadaan waa inay ciidanka dhiiri geliyaan maaha inay hooska joogaan maaha inay mukeyfyada ku jiraan waa inay dahabkooda gadaan raashinka qalalan soo sameeyaan ciidanka garab istaagaan qaasatan galmudug iyo hirshabeelle waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud oo runtii u dhabar adeegay waqtigu yimid ilaa ay hadda ku dhex jiro sidii wadanka looga xoreyn lahay cadowga nagu soo duulay oo kow ay ka yihiin ajaaniibta wadamadoodii ka yimid wadan kastoo ay ka yimideen ayagoo raba inay annagana gumaadaan ayagoo raba inayna barakiciyaan ayagoo raba inay owlaadeena waxbarashada u diidaan ayagoo raba inay hooska naga saaraan madaxweyne aadaan u mahadsan tahay adiga iyo ciidanka aad dhammaantood furmaha la joogtid oo maaragtay ama military ama nabad sugid ama booliis cid kastoo yihiin ciidamada qaranka dhammaantood waxaan leeyahay waa idin garab taaganahay macwiishleyda waxaan leeyahay sidoo kale waxaa aad ugu mahadsantiin ayadoo xilli adag lagu jiro xilli kuleyl lagu jiro xilli oona lagu jiro xilli abaara lagu jiro inaad guryihiinnii uga soo samata baxdeen inaad dalkan iyo dadkan badbaadisaan waxaan ku ammaanayaa ciidamada macwiishleyda inay diyaar u yihiin mar kasto inay garab istaagaan dowladooda dhiiri geliyaan iska celiyaan cadowga annagana waxaan diyaar u nahay haddaan nahay gabdhaha reer hirshabeelle inaan maanta joogno Aadan Yabaal inaan diyaar u nahay inaan ciidanka raashinka u karino biyaha ka daba qaadno caanaha ka daba qaadno dhaawacooda qaadno garab istaagno waxaan mar labaad ku celinayaa islaamaha hawiye jooga gobolka banaadir oo joogo hiiraan oo joogo meelaha ay degan yihiin hawiye oo dhan dowladda ha garab istaagaan qaasatan magaalooyinka lagu soo duulay oo ay xoogga saareen qawaariijta waa dareemi kartiin inay dhulka ay yihiin magaca aan hadda ku tilmaamo anoon jeclayn haddana waxay taagan tahay meeshii ugu dambeysay mahadsanidin dhammaantiin waxaan aad ugu mahad celinaa wariyaasha ayagana markasta garab taagan inay soo duubaan jabka qawaariijta dhiiri geliyaan ciidanka garbahooda taagan duubaya xabadii oo socoto idinkan waxaan idin leeyahay waa mahadsantiin dadka ganacsatada ah oo hawiye waa inay soo garab istaagaan la dagaalanka qawaariijta waa inay garab istaagaan waa inay furmaha yimaadeen xildhibaanada wasiirada hadday heer state yihiin iyo hadday heer federaal yihiin maadaama madaxweynahoodii oo joogo furmaha sababay uga maqnaadaan ayagana ma jirto waxaan carabaabay gabdhaha hawiye inay yimaadeen furmaha maaha inaan dhaleeceynaa laakiin waxaan rabnaa inay soo garab istaagaan sideen oo kale ciidamada maaha laakiin waxaan rabnaa dhammaanteen anagoo isgarabsanayno galmudug iyo hirshabeelle gabdhaha ka dhashay meel kastoo joogaan furmaha inay yimaadiin waan mahadsantihiin